السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Excellency Ismail Omar Geele, the President of the Republic of Djibouti. Your Excellency madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi markii hadalkiisa uu bilaabay waxa uu mahad celiyay madaxweynaha dawladda Djibouti Ismail Omar Geele oo shirka martigeliyay isla markaasina shir gudoominayay kulanka. sidoo kale waxa uu mahad celiyay madaxda iyo diblomaasiyiinta kale ee ka socda dawladaha caalamka ee shirkaasi gacanta ka geystay isla markaasina halkaasi ku sugnaa kuwaasi oo badankoodu ka socday midowga Afrika, IGAD, Mareykanka iyo midowga Yurub. madaxweyne Biixi ayaa hadalkiisa waxa uu ku bilaabay Mr. President and Chairman as well. mudane madaxweyne iyo gudoomiye marka ugu horeysa farxad weyn ayay ii tahay halkan inaan idinla joogo maanta si aan uga qayb qaato si wadista wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. ogolow inaan u mahadnaqo madaxda ka socota wadamada gobolka iyo qaaradaha kala duwan ee dunida. sidoo kale madaxweyne Biixi waxa uu sheegay inuu si dheeraad ah ugu mahadnaqayo mudane Ismail Omar Geele madaxweynaha Djibouti iyo dadka reer Djibouti sida diiran ee walaaltinimada la ugu soo dhaweeyay magaalada caasimadda ah. We may be separated by land and sea, nothing will diminish the importance. inkasta oo laga yaabo inaan bad iyo dhul aan ku kala duwanahay haddana waxba uma dhimayso doorka muhiimka ah ee aad ciyaartaan. waa inaad sii wadaan kartidaasi iyo dadaaladaasi aad wadaan ee ah inaydu nabad iyo xasilooni ka keentaan qaaradda Afrika. gobolku waxa uu la silcayay caqabado isku dhafan oo aan hore loo arag kuwaasoo isugu jira cudurka COVID-19 iyo arrimaha deegaanka iyo dhaqan-dhaqaale. wada shaqaynta gobolka iyo wadajirka ayaa si degdeg ah loogu baahan yahay in lagu hogaamiyo dadka nugul mustaqbal barwaaqo iyo xasilooni ah. bilaabista wada hadalladan dhexdhexaadinta iyadoo ay meesha ku jirto taageero caalami ah waa arrin muhiim u ah sugidda mustaqbal sii waara iyo in la fuliyo waajibaadka adag ee mudan in la dhiso xiriir nabadgelyo xasilooni oo dhaxmara dadka Soomaaliland iyo Soomaaliya. The duty of building a safe, secure and stable relationship for the people for Somaliland and Somalia. Excellencies, allow me to stress the current phase that we are mudane ogolow inaan muujiyo soona bandhigo taariikh kooban oo ku saabsan sida aan ku soo gaadhnay halkan maanta aan joogno. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay xornimadeeda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska 26 Juun 1960. ogeysiinta madaxbannaanidaasi waxaa durbadiiba laga diiwaangeliyay qaramada midoobay 35 wadan ayaana aqoonsaday Soomaaliland. Notification of that independence was duly registered with the United Nations and 35 countries recognized Somaliland. Somaliland waxay si iskeeda ula midowday Soomaaliya 1 Juulaay 1960 si ay u samaystaan Jamhuuriyadda Soomaaliya. midnimadaasi looma marin hab sharci ah. sidoo kale ma jirin sharci qeexaya midnimo oo si rasmi ah loo saxiixay. sidaas awgeed hanaankii midayntu muu buuxin shuruudaha uu farayo sharciga dalalka iyo shuruucda caalamiga. As the Act of Union was never formally signed, therefore the unification effort fell short of the requirements mandated by domestic and international law. From the beginning, bilowgiiba midnimadu si hagaagsan uma shaqaynin maadaama dadka reer Somaliland si weyn loo dulmay. dadka reer Somaliland waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin midowgaasi dhacay iyagoo si xad dhaaf ah uga codeeyay dastuurkii cusub ee haftida loo qaaday 1961. waxa kaloo ay galeen halgan buuxa oo ka dhana Jamhuuriyadda Soomaaliya. tani waxay dhalisay burburkii Jamhuuriyadda Soomaaliya ku dhacay 1991 iyo soo celinta madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland 18 May 1991. 18 May 1991. Since restoring tani markay dib ula soo noqotay madaxbannaanideeda Somaliland iyada oo khayraadka ay haysataan uu aad u yar yahay taageero badanna aan ka helin caalamka waxa ay ku bilowday ajanda joogto ah oo hor u socda gaar ahaan xalinta khilaafaadka iyo dhismaha nabadda dawlad dhisidda peace building maamul wanaagga iyo hay'ado dawladeed oo shaqaynaya
qabashada afti dastuuriya taasi oo boqolkiiba 97 ka mid ah dadka reer Somaliland ay u codeeyeen isla markaasina ay ansixiyeen dastuurka iyo madaxbannaanida Somaliland. muddada ay jirtay Somaliland waxa ay qabatay wareegyo badan oo doorashooyinka axsaabta badan oo u dhacay si xor iyo xalaal ah. 3 wareeg oo doorashooyinka madaxtooyada ah, 2 wareeg oo doorashooyinka golayaasha deegaanka ah iyo doorashooyinka baarlamaanka. Jamhuuriyadda Somaliland waxa kaloo ay abuurtay jawi wanaagsan oo u suurageliyay ganacsiga gaarka loo leeyahay inuu kobco iyo maalgashiga caalamiga ah oo socda. A conducive environment that enabled a thriving private sector and an inflow of international investment. Somaliland waxay door muhiim ah ka ciyaartay nabadda iyo xasiloonida gobolkan, waxayna door lama ilaawana ka qaadatay la dagaalanka argagixisada, burcadbadeednimada, tahriibinta dadka, dambiyada dhaqaalaha ka dhanka ah iyo noocyada kale ee dambiyada abaabulan. nasiib darrase halkii laga qadarin lahaa dhammaan dadaaladaasi iyo nafhurkaasi ay sameeyeen dadka reer Somaliland 30 sano ee la soo dhaafay. Soomaaliya waxay kula jirtay dagaal joogto ah oo ka dhana xasiloonida iyo horumarka Somaliland dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga. taasina waxay sii kordhisay cadaawadda ka dhaxaysa labada wadan. This deepened the mistrust and animosity between the two countries. iyadoo Somaliland si degdeg ah oo iskeeda ay u gashay midnimada Soomaaliya, dadka Somaliland waxay ka dhaafeen tacadiyo, cadaalad darro iyo xasuuq ay u geystay dawladdu. of injustice, discrimination and state-sponsored genocide at the hands of the Somali government. caddaymaha dembiyada dagaal ee baahsan ee lagu soo qaaday dadka reer Somaliland waxaa si buuxda u diiwaangeliyey ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha iyo koox khubaro ah oo ka socota dhakhaatiirta u dooda xuquuqda aadanaha iyo komishanka dembiyada dagaalka ee Somaliland. falalkii xasuuqa ahaa ee ay geysteen taliskii Maxamed Siyaad Barre waxaa lagu xusuustaa in ka badan 200 oo xabaal wadareed. qubuurahaasi wadarta dadka loogu aasayna qubuur wadareedkaasi oo qaarkood weli aan daaha laga rogin waxay weligood ka marag furi doonaan dembiyada ka dhanka ah aadanaha ee dawladda Soomaaliya ay kula kacday dadka reer Somaliland. Forever testify to the crimes against humanity committed by the government of Somalia against the people of Somaliland. sidaas daraaddeed marka la wajahayo marxaladda hadda jirta ee Somaliland iyo Soomaaliya waxaa lagama maarmaan ah in tixgelin habboon laga yeesho wixii na soo maray oo cashar laga barto. dhaxalka dulmiga ka dhanka ah dadka reer Somaliland si fudud looma baabiin karo. taasi beddelkeeda waa in la aqoonsadaa lana tixgeliyaa dadka reer Somaliland xaqa ay u leeyihiin go'aansiga madaxbannaanida. to self-determination and independence. The case for Somaliland independence. kiiska madaxbannaanida Somaliland waa mid gaar ah. xaqiiqdaasina waxaa sidoo kale qiray howlgalkii midowga Afrika ay u direen Somaliland sanadkii 2005 kaasi oo soo gabagabeeyay in xaaladda Somaliland ay tahay mid loo garaabi karo oo xaq ah kuna cusub taariikhda siyaasadda African political history. That the case waxaa kaloo ay sidoo kale dalbadeen in midowga Afrika uu raadiyo hanaan gaar ah oo lagula tacaala kiiska Somaliland marka ugu horreysa ee suurtagal ah. intaasina waxaa dheer howlgalkaasi xaqiiqa raadinta ah ee midowga Afrika ee dhacay sanadkii 2005 waxa uu sheegay in Somaliland cilladaha ka hor iman doona ay ka mid yihiin midnimadaasi shaqayn weyday ee ay mar la wadaageen Soomaaliya, taasoo dadweynaha ku kaliftay inay burburiyaan midowgaasi. confronting Somaliland are in part the legacy of political union with Somalia that malfunctioned and brought the destruction and ruin, thereby overburdening the population of Somaliland. Somaliland's claim to independence. xilliga Somaliland ay qaatay madaxbannaanida 1960kii waxaa u sugmay oo ay sheeganaysaa xuduudo caalami ah oo ku suntan xilligaasi xorriyadda. The recognized international borders relating to that period. xaaladda Somaliland waa mid gaar ah una baahan xal gaar ah. Unique and demands unique solution.
It does not create tusaale uma noqon doonto mana abuurayso khilaafyo kale oo ka yimaada xuduudaha Afrika ama meelo kale qadiyadda sharciga ah ee Somaliland ee madaxbannaanida waxay waafaqsan tahay shuruucda caalamiga ah Somaliland waxay buuxisay shuruudaha dawladnimo sida ku xusan heshiiskii Montevideo ee 1933 of 1933. Somaliland waxay buuxisay shuruudaha ku xusan qodobka afraad ee axdiga ku meel gaarka ah ee midowga Afrika kaasi oo qeexaya ixtiraamka xuduudaha jira ee xilligii gumaysiga kadib Somaliland waxay si buuxda u ogtahay in marka loo eego qaaradda Afrika ku dhaqanka xaq u lahaanshaha go'aan qaadashada uu ku xidhan yahay mabda'a ixtiraamka xuduudaha hore ee jiray qadiyadda Somaliland waxay ku salaysan tahay dib u soo celinta xuduudihii ay lahayd xilligii gumaysiga iyo xilligii ka dambeeyay ee xorriyadda labadaba Somaliland's case for independence involves restoring borders of it possessed both as a colonial entity as an independent state. Between 1991 intii u dhaxaysay 1991 ilaa 2000 ururka midnimada Afrika waxay ogolaadeen kala goynta laba midow oo dalal dhaxmaray sanadkii 1989 Senegal waxa ay dooratay inay ka baxdo oo ay ka go'do midnimadii 7 sanadood ay kula jirtay Gambia kaasi oo loo yaqaanay Senegambia 7-year merger with Gambia as Senegambia Federation of 1993 Eritrea formerly seceded from Ethiopia. sidoo kale 1993 Eritrea waxay ka go'day Ethiopia intaasna waxaa dheer iyadoo oo la taageerayo heshiis nabadeed oo dhammaystiran oo la ansixiyay 2005 iyo xornimadii koonfurta Suudaan iyo ogolaanshaha midowga Afrika oo markaasi aqbalay kala go'idda Suudaan maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah aragtideeda sharci ee ku saabsan Kosovo waxay ku dhawaaqday 10 ilaa 4 cod oo ah ku dhawaaqista madaxbannaanida Kosovo ee dhacday 17 Febraayo 2008 inay xaq ahayd oo aanay ku xadgudbin sharciga caalamiga ah sababtoo ah sharciga caalamiga ahi kama mamnuucayo ku dhawaaqida madaxbannaanida General international law because the international law provides no prohibition on declaration of independence. Furthermore, inta waxaa kale oo jira kiis kale oo ah guddigii xallinta khilaafaadka ee shirkii nabadda ee Yugoslavia waxay soo saareen fikrado taxane ahaa oo ku saabsanaa ansaxnimada sheegashada dawladaha cusub ee madaxbannaanida iyo shuruudaha aqoonsiga guddigu waxa uu go'aamiyey intii ka dambaysay kala go'idii Yugoslavia waxaana ay u tixgelisay inuu ahaa kala saarid laba wadan waxaana ay u diiday in loogu yeedho gooni u goosad The commission determined inter alia the break-up of Yugoslavia was case of dissolution rather than cession. raadinta Somaliland madax bannaan ma aha kiis gooni u goosad ah laakiin waxay tahay ka noqoshada midow siiskii u dhacay oo u dhaxeeya laba dawladood oo madax bannaan qaar badan oo ka mid ah wadamada xubnaha ka ah midowga Afrika ayaa iyaguna ah wax soo saar ka soo baxay midow fashilmay A number of African Union member states are also the product of failed union. Mali, Senegal. waxaana ka mid ah wadamada Mali, Senegal, Gambia iyo Masar dhammaantood waxay ka soo baxeen midow ay dal kale la galeen iyadoo xuduudooduna ay xadidan tahay midowga Afrika wuxuu kale oo aqbalay madaxbannaanida dhulal aan weligood hore u helin madaxbannaani buuxda kadib guuldarro ay kala kulmeen hankoodii ahaa dawlad midaysan inay ku jiraan oo ay ka mid ahaadaan jamhuuriyadda Somaliland waxay isticmaashay xuquuqdeeda dhaxalgalka ah ee go'aan qaadashada ku salaysan hordhaca bayaanka qaramada midoobay ee ku saabsan xuquuqda aadamaha kaasi oo soo baxay 1948 Universal Declaration of Human Rights. Somaliland waxaa muddo dheer ay ku dooday in jamhuuriyadda Soomaaliya ay ahayd laba wadan oo midoobay guuldarrooyinka ka soo gaadhay dawladnimadii ay wax ku darsatay waxay sabab u noqotay dib u soo celinta madaxbannaanida jamhuuriyadda Somaliland waxaan aaminsanahay in furaha mustaqbal waara iyo nabaddu ay ku jirto wada hadal daacada oo dhex maray Somaliland iyo Soomaaliya iyada oo la raacayo hanaan dhexdhexaadin oo leh dhexdhexaadnimo iyo damaanad
somalilan waxaa ka go'an inay nabad kula noolaato soomaaliya si kastaba ha noqotee somalilan waxay ku adkaysanaysaa in wadahadalku uu noqdo mid u dhigan hab laba dowladood oo leh ajande la taaban karo oo wax ka qabanaya arrimaha aasaasiga ah ee xudunta u ah khilaafka with a substantive agenda that addresses the core issues of the dispute. Today, maanta sideen uga gudbi karnaa wadahadalkan haddii heshiisyadii hore ee lagu kala saxiixday London, Istanbul, Ankara iyo Djibouti aan weli la dhaqan gelin? waxaan si kariya laaba u soo jeedinayaa in hanaan dhexdhexaadineed oo culays iyo kafaarad qaad leh lagu diyaariyo wadahadalkan wareegga cusuba waxaan uga mahad celinayaa Soomaaliya raaligelinta ay ka bixisay dhibaatadii foosha xumayd ee hore u soo martay Somaliland. jiilka cusub ee Soomaaliya dabcan mas'uul kama aha wixii jiilkii ka horreeyay ay sameeyeen, laakiin qirashada khaladaadka jiilkii ka horreeyay ayaa ah mid weyn oo si kal iyo laaba ay uga mahadnaqayaan dhammaan reer Somaliland. balse qirashada lafteeda ayaa ah mas'uuliyadda wixii waxyeeladii foosha xumayd ay keentay. erayo keliya kuma filna. tallaabooyinka foosha xumaa ee waagii hore waxay u baahan tahay wax ka badan erayo la yidhaahdo, waxaanay u baahan tahay ficil. Responsibility for the damage that horror caused. Words are not enough. ictiraafka iyo taageeridda madax bannaanida Somaliland waxay qaadan doontaa waddo dheer si looga bogsado dhaawacyadii hore loona oggolaado labadeeda dowladood inay noqdaan mustaqbalka kuwa kala madax bannaan balse isku tolan oo dana badan ay iskaga xidhan yihiin. kalsooni ayaan ku qabaa inaan mustaqbal ifaya oo darisnimo iyo walaaltinimo leh u wada dhisi karno dadkeenna iyo dariskeenna iyo dhammaan waddamada gobolka. waanad mahadsantiin. We can build a bright future together as a brotherly neighboring nations and for our own people and our region. Thank you very much.